noloshu haddii la rabo in la fahmo waa nolol ku salaysan imtixaan. waxaa jirta maalan aan odhan karna alfalsafa alcaalamiya marka la isku wada daro jawaanibtay kala gedisan oo dhan marka ay isku dayaan inay sharxaan nolosha guud ee bini aadamka iyo qaabku u nooliyey dhib baa jirta falaasafo kasta caqligooda daalisa oo ay sharxi kari waayaan maxaa dunida sharku u jooga waxaan leenahay dunida tan inay mashkiladani ka jirto oo ay qaabkan u taallo oo waxaanoo dhibi yaalliin aslan baa loogu qastiyey waayo waxaa loogu talagalay in la isku itixaamo dunida iyo qaab dhismeedkeedu waa sida ugu fiican ee la isu itixaamo. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaanu ku tilmaamaya alxayaati dunya bisamaawaatiha wa ardiha cilalka ka dambeeya inuu ka mid yahay in basharka lagu itixaamo. waa ka alle qur-aanku leh subxaanahu wa tacaala وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الابتلاء أو الامتحان إن لا يسكو اتحامه أي سمدا إي عركا إي دولكا إي وحن ودمي ودسي وحن لأن وحا علاقة إنسان كي الزمن ككدحية إي جيري إي النولل إي تطور كان ترى بدن لو بني آدم كمريو ودمانتي وحا لوغو طلقالي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وحين لنا إلهي سبحانه وتعالى إنسان كوحو كردقاي متفهم يكون كانوا كنوا لي وسميعا بصيرا بو كردقاي إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاجا نبتليه با إلهي سبحانه وتعالى. نولش فهم كذا حقيقي هاي وحي هاي إنو قفكو قرطه حياة دا الدنيا إنو أتشوغو إن لا اتحامي إن تكون راحيسان إن تكون برواقيسة يعني ماها نولش الدنيا وحا لو جوغا إيه لوغو نولي هاي إنا تهاي قف امتحان كجرا امتحان كاسين نتيجة دي سنة مالنت قيامين أدلق كل بس واتكمل نقون دونتا مركاسي كوة جنة لو دريريو أما أتكمل نقون دونتو كوة عذاب لو دريريو. قفك بني آدم كاوحا الله سبحانه وتعالى ونولشي سكايا لي قف دريمي كرا ربطة قاتشة حنونك مروغدا بقها تيرانيدا وروركا وحا صدرنو دريما وحا كلون نولشا لغايا لي وحا صدرن وحكو سبابي كرا إنو بقا تيرانيودا ورورو مروغودا وحا صدرن وحي سبابي لهانا isaga waxa laga dhigay inuu qaabiliya inuu leeyahay waxa siino dareemo kawnka dhamaantiina waxa laga buuxiyay waxyaabahaasi wixii qofka ku sababi lahaa inuu dareemo. waxaan leenahay markaa shakhsiga bini aadamkii qaabka alla uu abuuray iyo kawnka uu ku dhex nool yahay qaabka loo abuuray iyo xidhiidhka ka dhaxeeya qofka bini aadamka iyo nolosha dhammaanteed waa qaab إن لا اتحامه قفك بني آدم كان حياة الإنسان بين لنا مركه هدينا ربنا فهم الحياة الدنيا من أولها إلى آخرها وامتحان ومشقة. لقد خلقنا الإنسان في كبد يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه لا بد من كبد ولا بد من كدح. هدان وردن سوكوبا waxaan leenahay fahmi الحياة waa eray iska kooban baynu ku sharxi karnaa nolosha tan dhammaanteed macna kale ay samaynaysaa ma jirto اللهم إلا الاختبار والامتحان inay tahay mooyaan waa tajriba ibtilaa'iya wajiga kaliya uu qofku imtixaankaasi kaga gudbaano waa haday mashkilad tahay inaynu sabarkiiyo waxaan ula yimaado هذا النمعاد يا برواقد يا برارا يا كان تهينا إنه شكر الله يماده. وحن لنا مرك قفك صابر على الابتلاءات المؤلمة أما الشاكر كقوة على الابتلاءات الممتعة قفك شكر نقية يا قفك صبر يلا بضبا ابتلاء كان وكسبتا
markay nimcada ama baladas ay ula yimaadaan wejigii xaqiiqiga la rabay inay uga jawaabaan sida daraaddeed waxaan odhan karnaa ibtilaa'aadku dadku way ka warwaraan waayo noloshaanay saani u fahmin laakiin waxaan leenahay waxa dhici karta ibtilaagu inuu u yimaadaba lirifca in qofka la kor yeelo daraaddeed si uu qofku u gaadho aqsa darajaat alkamaal albashari wa aanu si kale ku gaadhi karin ila alibtilaa mooyaane idan waxaan leenahay balaagu wuxuu u yimaadaa lirifca in la kor yeelo waxaan odhan karnaa ibtilaaga iyo imtixaanku waxay u kala badan yihiin siday dadka diintoodu u kala badantahay ashaddu nnaasi balaana alanbiyaa ثم الصالحون إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة التي يحويها وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء النبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام إن dadka ugu imtixaanka badan la anbiyada yihiin dabeetana saalixiintu ay ku xigto midkood buu nebigu leeyahay saalixiintaasi faqri baa lagu imtixaamaa ilaa ayaanu waxba ka haysanaynin cabaada yar oo huwan yahay mooyaane wax kaloo haysta aanay jirin laakiin buu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam balaaga iyagu waxay ugu farxayaan sida midkiin idinka uu nimcada ugu farxo sida xoolaha iyo adduunkan iyo waxaan ugu farxdaan ay dadka saalixiinta ibtilaa'aadkan ay ugu farxayaan buu nebigu ku tilmaamaya بل أحاديث الصحيحة النبي كسر أرتي وحكمده إنه النبي كنت المامي إن عظم الجزاء مع عظم البلاء أبا المركة وينيدي سبين يكون حرنتهي بلد وينيدي وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم ولما النبي يقول عليه الصلاة والسلام قوم هدون الله تعالى سبحانه وتعالى إلهي ويتحامى فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط عند الرالي نقطنا رالي بولي عند عروتانا عرى بولي والعياذ بالله وحلنا النبي عليه الصلاة والسلام مركز بوحو تلماما يا قفك مؤمنك إن الرفعة ونقن كرته مسألة تانية وكان النبي عليه الصلاة والسلام حديث كالترمذي ورينا يا وحسنين يا وحليه إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا هدي قفك قال له خير لا دونيو مشكلة دي سبا أدونك الله غهر مريا نبتي سأدونك كقاطع دي خير الله ولا ربا قفك كان أدونك انتو تشوغو نبتي سودان قاطع وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة قال له شركا لا دونينا ذنوبتيسا dunida laguma abaalmariyo waa loo kaydiyaa si bar qura loogu wada oofiyo booska naareeda sare uu leeyahay uu gaadho waxaan leenahay markaas ibtilaaga qofka mu'minka ah ku dhaca iyo ibtilaaga qofka gaalka ah ku dhaca ama labada mashkiladada kala qabsataa wajiyo kala gadisan bay leeyihiin kow ibtilaaga qofka mu'minkii wuxuu yimaadaa lirifca wa tathiir in kor loogu qaado ama in dunuubta lagaga daahiriyaa waxa kale oo ibtilaagu dadka muuminiinta ugu dhaca litamxiis in iyaga sufuuftooda la kala sooco kooda fiican iyo kooda xun la kala ogaado ma kana Allah liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib ayadkaasi Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku tilmaamaya dadka muuminiinta sidan ay yihiin inaan lagaga tagaynin إلا كلا صار دون الخبيث وطيب لكن إلهي وحليه وما كان الله ليطلعكم على الغيب غيب كان اللي يدين ما وقيسينيه وأنا اللي يدين كلا صاريا محال لقو كلا صاريا وآيات كي تعقيب كواها أحد يعني ابتلاءات كي مشكلات كاكو كلا بحيسة مركي مشكلات دو أمضو أي كشو أيال لوغاني يا كيدا منافقة يا كيدا إيمانكو كدب كيهي كذا وحكى لكل فاقنا يعني كيدي خير كون وذي مشكلة دادتك اللي وكلا وقال أما هدي اللي سكوا ذي معيسين يلا وضع الصعودات دادكو ما كلا قرتو لا ما كلا قرتو إذن هدي اللي الربا مجتمعين تمحيس لغو السماعي إلا كلا صعو ولا بد من ابتلاءات
وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون آيات كاسو دمي waxay sheegayaan koo waxaan leenahay lirifca ثانيا waxaan leenahay liltathhir ثالثا waxaan leenahay ibtilaaga qofka mu'minka ku dhaca waa litamxiisi sufuufihim si loo kala saaro sufuuftooda لا لا لا